السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا لما أنا خيارتي أنت جانل كحران أنت عصب لما أنت كسؤال هذا مقال كان ما مقال كان وحنا كشرح دورنا هذيك آد مهمة هذيك كان وحو آد كاجا أنفعيا هدي أقرب مثلا كمبيوتر كاجا أو هولك وصوته كله إن الدبد وبحضه كدبنا التلفون كاجا كمبيوتر كما مشو أما بكمبيوتر كله أو استعماله يا كمبيوتر كاجا فايل كتيرة آد لبحضه أما أدير صوته ama ba aad rabto qof kale inaad caawiso computerka aad u isticmaalaya computerkiisa ciladaha ku jirana aad uga hagaajiso dhammaan waxaa ka caawinaya barnaamijkan ama programkan aan maanta xagan ku sharxi doono daawasho wacan haddaba si aan u bilowno programka maanta waxaan tegaynaa marka koobaad Chrome-ka aan furana shaashada oo dhan ugu balaari xagga waxaan ku qoranaa programka waxa la yiraahdaa remote desktop google.com website-kaas ayaan tegaynaa website-ka markaan tagno waxaan noo soo bixaysaa safxadan ay ku qoran tahay set up remote access waxaan sameynaa marka koobaad wuxuu u baahan yahay inaad sameyso inaad soo dejiso extension kaas computerka markaa ku dejiso kadib ayaad computerkaaga ku xiri kartaa waxyaabaha kale oo dhan haddaba si aan u dejino waxaan leenahay meesha badhanka ay ku qoran tahay download Chrome remote desktop ayaan ku dhufanaynaa waxaa arkaysaa xagga hoose ayuu ka bilaabay inuu dejiyo ma sii weyna waa extension aad u yar 16 MB wey markuu dhameeyo uu saa u dego wuxuu ku leeyahay accept and install ready to install ku soo qoraya accept and install ayaa leedahay kadib waxaa leedahay open download ay ku leeyahay kadib wuxuu furayaa maxaa la yiraahdaa safxadan wuxuu ku leeyahay ma ogoshahay inaan soo dejino adigu yes ayaad leedahay kadib uu ku dhameynaya kadib wuxuu ku leeyahay markaa computerkan magac u bixi computerkan waxaan u bixinaynaa hadda HP si aan u garano مثلا kala home ayaan leeyahay home ayaan bixinayaa home markaan u bixiyo next leeyahay next markaan iraado ayo waxaan wuxuu ku leeyahay bin gali binkan waxaa la rabaa inuu garaan sidoo kor kugu sheegayaba inuu 6 number u garaan yahay waxaan sameynaynaa hadda مثلا kale 1 2 3 4 5 6 ayaan ka dhigayaa كل دي بقى كل بدل دونا معنا بمسمى نشو لكن أديك ما كأسمع لسه حسكو ضيضاء إن نمبر أديك أدجلسون حلينا 1 2 3 4 5 6 ما كان سان رانو start لنا start ما كان رانو yes لنا هاي كديب waxaa arkaysaa starting inuu leeyahay wuxuu ka shaqeynayaa inuu ku diyaariyo computerkan si online looga isticmaali karo ama loogu xidhmi karo marka xagga dhameeyo waxaa la rabaa inuu soo qoro online aan sugeynaa waxyar inta aan sugi lahayn haddaan waxaan kaloo sii sharxayaa qayb kale waxaan u gelayaa qaybta remote support ay ku qoran tahay remote support qaybtan waxa loogu talagalay in aad qof kale computerkiisa kale inaad caawiso kale markaad rabto ama ciladoo kale ka hagaajiso adoo computerka isticmaalaya ama meel ka fogna jooga waxaa sameynaysaa qaybtaas ayaad tagaysaa safxadda labaad qofka computerkiisa in la hagaajiyo la rabo ayaa wuxuu ku dhufanayaa xagga generate code meesha ku qoran tahay share this screen meesha ku qoran tahay generate code markuu ku dhufto waxaa arkaysaa wuxuu u diyaarinayaa codekii lagu geli kari lahaa ayuu ku diyaarinayaa codeka ayuu kuu soo dirayaa qofka uu rabo in uu ka caawiyo ama inuu soo galo codeka marka uu kuu soo diro hadda waan koobiyey مثلا qofka kalena xaggan ayuu ka gelayaa emailkiisa ayuu ka gelayaa isla website-kan kadib qaybtan ayuu imanayaa wuxuu ku dhufanayaa connect to another computer kadibna access code-ka ayuu gelinayaa hadda si aan u tijaabino aan iraado duplicate safxadan ayaan leeyahay مثلا access code ayaan leeyahay kadibna paste ayaan leeyahay code-kan ku gal connect markaan iraado waxaa arkaysaa inuu computerka soo weydiinayo ma rabtaa wuxuu ku leeyahay Chrome remote desktop will you like to allow hebel gmail-ka ninka leh ma u ogashahay inuu computerkaaga ku xidhmo ayuu ku leeyahay share hadda haddaan ku dhufto
horey ayuu qofka shaashadeedan oo dhan ka arki karaa computerkan uu xagga ka maamuli karaa. laakiin aniga maadaama hadda hal computer haysto macna badan ma sameynayso, waan idin tusi lahaa laakiin adiga inaad tijaabiso ayaa fiican, sababtoo ah computerka shaashadiisana hadda waan duubayaa marka uu waalaya marka, sababtoo ah computerka loo arkaya computerka lagu controlaya, waxay noqonaysaa silsilad aan weligeed dhammaanaynin, laakiin way fiicnaan lahayd in adigana tijaabiso. hadda anu waxaan leeyahay cancel, wuxuu leeyahay the remote user declined the support request. qofkii aad caawin lahayd macnaha uu kansalay ayuu ku leeyahay koodhkan. haddaba qaybta caawimaadana sida ay u shaqeysaa fudud ayaad ku caawin kartaa. hadda waxaa arkaysaa qaybta kale haddaan kusoo noqdo remote desktop home, computerkeeni inuu online yahay. online marka uu yahay macnaheedu waxay tahay computerkan waa lagu soo xidhmi karaa, telefoonkaa ka maamuli kartaa, tablet ka maamuli kartaa, computer kale ayaad ka maamuli karaysaa. hadda waxaan sameynaynaa computer kale ma hayno aan ka maamulno, tabletkana waxaan uga fududaan isleeyahay telefoonka intayna gelin, laakiin computerka kale hadaad haysato waxaad tegi kartaa on just website-ka ayaad tegaysaa remotedesktop.google.com/access. markaad tagto safxadan ayaad kusoo baxaysaa. haddii isla emailkan aad xagan kaga furta aad computerka kalena uu kaaga furan yahay, markuu sidaa kuugu furnaado ayaa waxaa ku dhufanaysaa home, ayaad ku dul dhufanaysaa, kadib wuxuu ku leeyahay connecting ayuu kusoo qorayaa, kadibna wuxuu ku weydiinayaa passwordkii ayaa xaga gelinaysaa, kadibna sidaas ayuu kuugu furayaa computerka. laakiin aniga maadaama halkan computerun uu yahay macno badan maanta ma soo kordhinayso inaan hadda galno, sababtoo saa idin sheegay computerkan silsilad aan dhammaanayn oo computer isdul saarana ayuu furaya. intaa markaan uga soo baxo computerka uu sidan kuugu diyaarsan yahay, haddii aad mathalan oo kale rabto inaad telefoonka ka maamusho, waxaa sameynaysaa sidan. waxaa sameynaysaa marka koobaad si aad u maamusho, waxaad soo dejinaysaa programkan kugu xidhaya computerka. programkan waxaa la yidhahdaa remote desktop ee la yidhahdaa, saa xagga kale ku qoran ayaad ku qoraysaa, ama Chrome remote desktop waa kaa u koreeya programkan magaca la wey. hadda aniga uu ii degsan yahay, laakiin adiga install ayaa kusoo baxaysa, installta ku dhufanaysaa. marka aad ku dhufato sida ayuu kuugu degaya. waxaa arkaysaa in 10 milyan dejisatay oo programka ugu koreeya badan oo kuugu soo kormari doona. open ayaan leenahay. open markaan iraado isla markii waxaa arkaysaa inuu soo saarayaba computerkii home ayaa online ayuu ku leeyahay. haddii ay kuusoo bixi weyso, badanaa waxaad eegaysaa xagga qaybta ayaa furaysaa oo waxaad hubinaysaa in emailka furan uu yahay emailkaaga. hadduuna ahayn xagga ayaad kasoo bedeli doontaa emailka. marka isla emailkii xaggaas computerka aad ku isticmaalaysay xaggana aad ka furto, waxaa arkaysaa in home uu saa kuugu soo baxayo. home ayaan ku dhufanaa. waxaa arkaysaa home markaan ku dhufano, wuxuu ku leeyahay waxaa gelisaa binki. bin iska fudud ayuu ahaa 1 2 3 4 5 6 ayaan leeyahay, laakiin haddii aad adiga isticmaalayso kolley bin adag u samayso. tijaabon ayaan ka wadnaa, kolley waana masixi doonaa haddii ilaahay. connect ayaan leeyahay. connect markaan iraado binkan uu saxan yahay, waxaa arkaysaa inuu shaashadii maxaa la yidhahdaa computerka una geeyey isla markii. waxaa sameynaynaa telefoonka marka koobaad qaybtaa kore ayaad saa usoo furi karaysaa. intaanad furin horta aan ka dhigno jiifino si aan computerka shaashadiisa oo dhan u wada arki karano. waxaa arki karaysaa hadda in telefoonkii aan computerkii kaga jirno. maxaan sameynaynaa mathalan oo kale haddii aan rabo inaan safxad cusub oo kaleba aan furo, waxaan rabaa inaan Google oo kala baaro. si aad keyboardka u isticmaasho, kor ayaa soo jiidaysaa calaamada keyboardka ayaad ku dhufanaysaa. keyboardka ayaa kusoo baxaya mathalan google.com ayaan leeyahay. google.com markaan iraado waan ka noqonayaa, keyboardka wuu xidhmayaa, kadib waxaan ku dhufanayaa Google tag ayaan ku dhufanayaa. markaan saa iraado Google waxaa arkaysaa inuu kuu furayo Google oo telefoonkeyga aan caadi hadda uga geli karaa. sidaas la eg safxadan raba ayaan tegi karaa. mathalan oo kale hadda computerka aan tagno bal channelka iyo videoyadii oo kale. videogaas oo kale inaan daawado hadda aan rabo, xaggan ayaan ku dhufanayaa.
waxaan arkaysaa hadda xaggana way ka socotaa videoga xaggan ayaan soo geli doonaa gadaasheeda telefoonkana sidaas ayaan ka daawanaa telefoonka ayaan ka joojinayaa xaggana way ka joogsanaysaa sidaas la eg waxaan samayn karanaa haddii ilaahay idmo inaan saan nidhaahno yareeno aan computerka caadi u isticmaalno مثلا oo kale programkaas fileska oo kale aad furtaba مثلا oo kale programka aan furno saas aad fileka rabto ku darsato waxaan xataa furi karanaa whatsappka ayaad furi karaysaa مثلا oo kale web ayaad leedahay kadib waxaad leedahay saa kadib saa ayaad leedahay مثلا oo kale whatsappka ayuu sidaa kugu furayaa waxaad doontaa ayaad computerka kasoo diraysaa sidaa ayaa horta loo isticmaalaa marka aad dhamayso wixii aad rabto aad computer ka dhamayso waxaad samayn karaysaa xagga ayaad soo furaysaa kor kadibna waxaa kusoo baxaysaa menuga yar disconnect ayaad kadib ka dooran karaysaa kadibna sidaa ayuu kaga baxaya xataa waxaad samayn karaysaa computerka ayaad ka damin kartaa xaggan marka hawshaadoo kala dhamaysato aad isleedahay dibna uma isticmaalaysid xaggan ayaad ka damin kartaa haddaan mar labaad ku noqdo computerkii mar labaad haddii aan ku noqdo computerka xataa xaggan waad ka damin karaysaa مثلا oo kale waxaad ku dhufanaysaa start kadibna waxaad leedahay مثلا oo kale power kadibna wuxuu kusoo saaraya calaamadihii sleepti iyo wixii oo dhan xagga sidaas ayaad ku maamuli karaysaa aan hadda isaga baxo disconnect daba intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen khidmadaas iyo isticmaalkeedaba waxay ka caawin karaysaa waxyaabo badan siiba haddii aad dadka howlaha badalan oo kale haddii aad rabto intaad kasii maqan tahay computerka oo kale in download wax aad download garay lahayd oo kale uu sii dhameeyo ama installation dheer oo kale aad sii dhamaysto si markaad u timaadaba isagoo diyaarsan aad u timaado waxyaabaha iyo xataa caawimaada qof kale inaad caawiso kale ayaa loo isticmaalaa programkan badanaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan khidmadan iyo isticmaalkeedaba siina share garay ciddii aad leedahay weydananaysaa ama ka faa'iidaysanaysaa khidmadan fadlan gaarsii intaan muuqaalkan lamid isku arki doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh